gurigeygan waa la burburi ilaahan u sheegtaa waxaan heli karana ma leh. Soomaaliya waa dal hodan ah laakiin su'aasha dad badan aysan weli fahmin waxay tahay daawada haddii dalku hodan yahay maxaa shacabka Soomaaliyeed sabool uga dhigay. maanta kumanaan qof ayaa laga barakicinayaa dhulkoodii, qaar waxay leeyihiin ganacsato ayaa boowaya, qaar kalena waxay leeyihiin ajaanib ayaa gadaal ka riixaya, laakiin runta dhabta ah waa maxay? yaa loo boowayaa dhulka Muqdisho? meelo kalena ayaamahan dad baa ka hadlayay warcad ku soo carab hayno masaakiinaan nahay madaxweynow waa ku duceehayna noo naxariiso Allah ku naxariiso khayrkaagana Allah badiyo madaxweynow umrigaaga Allah dheereeyo ninkan hadda dalka Soomaaliya muddo dheer wuxuu ka soo kabanayay daawada dagaalo burbur abaaro iyo dawlad la'aan, laakiin maanta dad badan waxay sheeganayaan in dib cusub bilowday dhul boob. qoysas dhan ayaa la sheegayaa in laga saaray guryahoodii, beerahoodii iyo meelihii ay sanado badan ku noolaayeen. magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Beledweyne, Kismaayo waxaa ku nool boqolaal kun oo barkacyaal ah, qaar waxay ka soo carareen abaaro, dagaalo, al-shabaab. laakiin qaar kale waxay sheegayaan in xoog looga qaaday dhulkoodii. hooyo Soomaaliyeed ayaa tiri, habeen ayaan seexanay, subaxdii waxaa noo yimid rag leh meesha ka guura, carruur hoy la'aan ah, dad nolol la'aan ah. laakiin su'aasha ugu weyn waxay tahay daawada ayaa helaya dhulka dadka laga qaaday. dad badan waxay farta ku fiiqayaan ganacsato awood leh, siyaasiyiin, shirkado shisheeye. waxaa jira warar sheegaya in dhulal muhiim ah loo wareejiyey shirkado maalgashadayaal iyo dad gana gaar ah leh, laakiin caddeemo badan dadweynaha si rasmi ah uma arkaan. Soomaaliya maanta waxaa xiiseynaya dalal badan sida Turkiga, Itoobiya, Imaaraadka, Mareykanka, Shiinaha. sababta waa goobta istiraatiijiga ee Soomaaliya, xeebta ugu dheer Afrika, kheyraad badan iyo marin ganacsi caalami ah. laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin in awoodaha shisheeye aysan Soomaaliya u imaan keliya caawimaad balse dana dhaqaale. dhanka kale ganacsatada Soomaaliyeed qaar ayaa lagu eedeeyaa inay dhul badan iibsadeen ama ay xoog ku qaateen, laakiin qaar kale waxay leeyihiin ganacsigu dalka ayuu dhisayaa. Muqdisho waxaa ka soo baxaya dhismooyin cusub, hodheelo, ganacsi weyn, laakiin dadka barakacyaasha ah waxay isweydiinayaan daawade horumarkan ayaa loogu talagalay ma muwaadin mise ajnabi? haddii dhulkii shacabka la waayo maxaa dhici kara? khilaaf, carab bulsho iyo kala qaybsanaan cusub. taariikhda Soomaaliya waxay marar badan la bartay in cadaalad darradu dhaliso qalalaase. laakiin weli rajo waa jirtaa daawade. dad badan waxay rabaan sharci cad, ilaalinta shacabka iyo dawlad awood leh si qof kasta oo u helo xuquuqdiisa, dhulkiisa iyo mustaqbalkiisa. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay meel adag. dhulkii shacabka, ganacsiga iyo saamaynta shisheeye dhammaantood waxay noqdeen dood weyn, laakiin su'aasha ugu weyn waa yaa dhab ahaan loo boowayaa dhulka Muqdisho ama dhulka Soomaaliya? fikirkaaga commentiga ku qor. adigu maxaad u malaynaysaa daawada? like saar muuqaalka, subscribe samee si aad u hesho runta aan la sheegin iyo wararka qarsoon. muraadkaada Allah sahlo khayrkaaga Allah badiyo madaxweyne ajir Allah ku siiyo inaanu naxariista rabna Allah ku naxariisto wax ma haysan khayrkaaga Allah badiyo wabillahi tawfiq. bal gurigaagan oo la burburinayo gurigeygan waa la burburi ilaahan u sheegtaa waxaan heli karana ma leh. muraadkaada Allah sahlo inaa iso dadaashina waa raba aniga madaxweyne ajir Allah ku siiyo Xasan Sheekh Maxamuud Allah ka farxiyo. gurigaagan baa milkiyadaadu ahaa? milkigeygu ahaa anaa iska leh. sababta loo duminayo waxaa loo duminayaa lili dadka laga dumayo dadka ka mid tahay. sababtu maxay tahay marka? waxay tahay wariye dhulka cariiriyas gali waxaan rabaa in la weyneeyo dhulka nafis laga dhigo oo baabuur maro, mooto marto,
meed laga bixiyo marka waxaan idin sheegay in jidad laga bixinayo jidaa laga bixinaa waayahay mise sana halkaa deganay aniga waxaan deganaa 15 sano alxamdulilah marka bal xaaladan xaafadda ay gashay oo la leeyahay jidada loo bixinayo waa la burburinaya alxamdulilah ilaahay amarkiisa seeda madaxweyne waxa oo diido oo amro ma la qalif karo madaxweyne la khalaafo ilaahay badiiday وأطيعوا الله وأولي الأمر منكم أولي إلهي مدحوينا خير الله سيهنو دباله وبالله التوفيق. شيخي إمامك عبده هيد إمامك مساعد كاي حال الصلاة الصبح كورة ما هل كان كنت قلت ما يا مساعد كان كنت ثاني أنت من إيمان هذا الأولى أنت إلا صبح ضان لم أنت جوجا. مركز هذا ما دام جوري اللي بربرنا وحى حجوين العقل الديبة. العقل الديبة أنا كان العقل ما هاي سنة مدحوين وأجر الله كسيه ونون حريص الله كون حريص. طويل تبان كون على جربة. طويل تبان كون مهلي كرنو أنا قم قوم مهلي كري أجر الله كسيه إن حريص سنة وبالله. شيخ قاسم دتكو وحسوا دينا يا شيخ قاسم عمريس الله بركيه وأمسك. أنا عمري واحد سجاش يعني شن جروي. كل سجال بقول صدق كان لك. ويا حالتنا أنا كل ويل مخصومة. ما يا ويل مخصومة. الحمد لله هذا ولا غيره إن شاء الله. ويا مركب محك ولا تهاي إن دتكو بركيه. ما بركيه هايو. العقل اللي قاعد مهني والله الصفية اللي والوينها جدت والله سميها نيت كمان اللي بحيها الربا موتر ما هي مرتها بابور ما هو رون بابور مركب. مركب حافظ أنت سوق عسلتها. ها أنت يكون عسلتها. لكن لنا على العكتة. العكتة اللي دوت كجرا دتك ما هاي وح أنا كمل دتك إلهي أجر غسيو. دت مجران قريه هذا اللي قاعدنا يوينا. ما يدل قاعدها مدير. قفص تقولي. قريه حالي العكتة اللي جرا والتوسع. ساسا لا دي شيء. بس.